iyo cid kastaba le inaan baaqa saddexaad aan u diro. ta koowaad hay-addan BSF waa hay-ad dawliya in muddo ah badanna Puntland ka soo shaqaynaysay. run ahaantii hay-addan aasaaskeeda allah u naxariista madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf xilligii uu madaxweynaha Puntland uu ka ahaa ayaa la aasaasay, maraaxil badan bay soo martay. hay-addani waa hay-ad lafdhabar u ah amniga reer Puntland. hay-addan shaqadeedu waxa ay tahay waa la dagaalanka argagixisada caalamiga ah. waan ognahay oo dhowaantan Soomaaliya marka ay ku soo bateen ururada argagixisada ah ayaa hay-addani waxa laga aasaasay maamulka Puntland. waxa ay shaqadeeda tahayna waa inay la dagaalantaa ururada argagixisada ah. waxa ayna la dagaalamaysay muddo dheer oo runtii ay u bogaadiyeen ayna u baahnaayeen dadka reer Puntland xilli ay arrinkaasi u dhib qabeen. waxaan ognahay madaxda hay-addan runtii waxaan ku naqaanay shaqo wanaag, waxaan ku naqaanay hufnaan, waxaan ku naqaanay dad u daacad ah shaqada ay u hayaan ummadda iyo dadka shacabka reer Puntland. waxaan maanta ka xunnahay in hay-addii lafdhabarta amniga dalka u ahayd in la damcay in la burburiyo. marka sababaha keenay in la burburiyo waxaa kow ka ah in Siciid guuldarradii uu ka qaaday doorashadii saddexda degmo Qardho iyo Ufayn iyo Ayl, caradii iyo guuldarradii uu ka qaaday inay sababtay inuu boorka isku qariyo, uu la dagaalamo, uu burburiyo hay-adda BSF. taas oo runtii bulshaweynta reer Puntland ay aad iyo aad uga xumaadeen. taladan Siciid Cabdullaahi Deni uu maanta ku dhaqaaqay waxaa garwadeen ku ah saaxiibadii oo siyaasadda ay shurakada ku yihiin oo ay taladan siiyeen. sababaha ku qasbayana ay ahayd Siciid inuu yahay musharax u socda Soomaaliya, uuna doonayo inuu dalka ooga tago nimanka ayaga ah, ayna istuseen haddii hay-addani iyo awooddani sii dhisan tahay in aan suuragal ahayn inay dalka ka sii talin karaan. waxaa kale oo runtii aad loogu xamanayaa shirkii asaga iyo Axmed Madoobe ee magaalada Garowe ay ku galeen inay ku gorfeeyeen in amniga Boosaaso la kharibo. amniga Boosaaso runtii amni darro iyo xasilooni darro laga abuuro si doorashada Axmed Madoobe siduu u doonayo Kismaayo kaliya inuu ku qabto uusan Garbaharey u tegi karin, in doorashada Siciid Cabdullaahi Deni uu ku qabto magaalada Garowe, ayadoo ujeedkeedana ay tahay in la boobo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka oo lagu dooran doono labadaa degmo. runtii arrinkaasi reer Puntland waa ka dheragsan yihiin. shacabka Puntland waad arkayseen qolyihiina saxaafadda ilaa shalay in ay ka mudaharaadayeen, ka hadlayeen baraha bulshada. dadka reer Galgalo, dadkii Garowe ka hadlayay waad maqlayseen. hay-addan iyo baahida ay u qabaan iyo difaaca ay u qabaan ay ku haystaan amnigooda. waxaan aniga tala ahaan u soo jeedinayaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. waa ognahay oo madaxweynaha sharciga kuma dhaqmo, oo madaxweynaha caada waxa uu ah inuu dastuurka Puntland ku tunto. waxaan ognahay wixii baarlamaanka Puntland ka dhacay hadday noqoto guddoomiyihii baarlamaanka. waxaan ognahay 8 mudane uu baarlamaanka uu ka saaray oo uu lacagta ku bixiyey. waxaa sanadkii saddexaad uu Siciid hadda ku tallaabsanayaa inuu burburiyo hay-addii BSF oo ahayd hay-adda lafdhabarka amniga Puntland u ahayd oo la dagaalamaysa argagixisada. bulshada reer Puntland, istimada iyo dadka dhaqanka ah, aqoon-yahanka, dhalinyarada, ururada, waxaan baaq u soo jeedinayaa in arrinkaa laga hortago oo runtii aan madaxa la hogan oo dadku madaxa aysan raaricin, hadal iyo ficil intaba in la isku daro si dalka maanta loo badbaadiyo.
سعيد waxaan ogsoonahay inuu musharax yahay inuu u socdo dowladda federaalka Soomaaliya uu musharax u yahay inuu doonayo inuu baarlamaanka boobo waxaan ogsoonahay golahiisa wasiirada waxaan ogsoonahay agaasimayaashiisii waxaan ogsoonahay dowlad xukuumaddiisii oo dhan inay yihiin musharaxiin maantana wuxuu rabaa Siciid inuu burburiyo hay-addii kaliya oo amniga Puntland dadka shacabka reer Puntland lafdhabarta u ahayd ayna ku maartay ay ku diirsanayeen halka waxa iga muuqda Siciid hadduu dowladnimo ka shaqeynayo uu doonayo inuu nidaam dawli oo sax ah ka shaqeeyo waxaan ogsoonahay golihiisa wasiirada wasaaradda deegaanka iyo beeraha oo hal wasaarad la iskaga dhigay in wasiirkiis dhagaweyne Allah u naxariista uu dhintay in 2 sano hadda aan wasiir loo magacaabin waxaan ogsoonahay wasiiru dawlihi madaxtooyada oo dhintay Maxamed Xasan Ciise inaan la bedelin waxaan ogsoonahay oo kale wasaaradda kalluumaysiga wasiirkii inuu iska casilay muddo sanad hadda laga joogo inay wasiir la'aanta in ayadoo intaas oo wasiir aan weli la magacaabin golihiisa xukuumadda oo sanatarra noqdayna aan weli ayaga nafsadooda aan xilki laga wareejin in Siciid maanta uu yiraahdo waxaan xilka ka qaadayaa hay-addii BSF madaxeedii sare ayadoo wax dambi oo cadayna aan lagu hayn ayadoo ay howl maalmeedkooda ay wateen ayagoo shaqooyinkooda dastuuriga u ahaa hay-adda ay ka shaqeynayeen wax dhaliila oo loo soo gudbiyana aanan jirin inuu yiraahdo maanta hay-addii waan burburinayaa waa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed Siciid waa arkaan waa musharax runtii wuxuu doonayaa inuu madaxweyne noqdo oo Soomaaliya uu noqdo madaxweynihii Soomaali maanta waa ka dhirigsantahay Siciid waxa uu yahay waxaana filayaa inaan maanta Siciid Soomaaliya aysan dooranayn in aysan xildhibaanada federaalka u soo baxay aysan dooranayn madaxweyne ka saari doona baarlamaanka marka ay ku qayliyaan ama aragti ka duwan aragtidiisa ay la yimaadaan in aysan suuragal ahayn in arrimaha dastuurka federaalka intuu ku tunto in looga aamuso marka waxaan leeyahay Siciid waa uu ku fashilmay waxa uu ku fashilmay maamulkii Puntland waxa uu ku fashilmay dowladnimadii Puntland waxa uu ku fashilmay in dhaqaalihii Puntland iyo dowladnimadeedii asaasiga Soomaaliya uu ahayd lafdhabarka oo la yiraahdo waxa ahayd Puntland hooyadii federaalka in uu Siciid uu maanta ay Puntland meesha ay marayso uu Siciid gaarsiiyay intii u dambeysana uu rabo inuu isdaba raaciyo marka waxaan halkaa ka cad inuu Siciid doonayn maamul ka dambeeyo Puntland oo caaqibo leh inuu jiro inuusan Siciid doonayn maxaa yeelay arrimihii dhaqaalaha Puntland maanta waad ogtihiin shilin Soomaaliga kama shaqeeyo dadkii abaaray tacbaan la yihiin waxay la daalaa dhaceen duruufo adag waxaan marka aan aad ooga xuma oo baaqayga ku xoojinaya in abaabulkan Siciid uu maanta ka wado gobolada Mudug iyo Nugaal uu ciidamada ka soo rarayo in ummadda reer Puntland ay u istaagaan kana hadlaan runtii arrinkaana Siciid runtii in loogaga hor yimaado oo dadku aaraadooda iyo fikirkooda ay cadeeyaan ugu dambeyntii ciidamada Puntland waxaan u jeedinayaa guud ahaan ammaan waxaan ogsoonahay ciidamada laga qaaday gaalkacyo iyo kuwii laga qaaday gobolka Nugaal inaan loo sheegin qorshihii loo waday oo magaalada Boosaaso loo geynay lagu yiri waxaad ilaalinaysaan amniga doorashada laakiin markii la geeyay ay ogaadeen Siciid amniga doorashada inuusan u geeyay Siciid inuu u geeyay inuu ku weeraro ciidanka BSF ciidamada Puntland waxaan leeyahay war idinka ayaa garab ee gaashaan isku ah BSF waad ogtihiin waxa ay idin tahay waa dadka aad dhufayska ka wada dagaalamayseen waa dadka aad isku hilbadirireyseen yaan la idin burburin nin siyaasi